aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxda gobolka iyo gobolka guud ahaan intii aanu joognay waftigan ballaaran soo dhoweyn iyo wixii hawle loo baahday iyo gobolkii oo dhammi inuu heegan u yahay waftiga iyo la shaqayntiisa aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa maanta mashaariicda aanu soo furray ee inta badan gobolku ama wasaaraduhu iyagu ay dhisteen badankooda oo inta badan wasaaraddu iskooda u dhisteenna aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dadaalka aad gobol ahaan heerka wasaaradaha iyo maamulka gobolku uu ku dadaalayo inuu dhismo hay-adihii dowladda ee gobolku ee wasaaraduhu maanta gobolka Sanaag iyo Somalilandba mashaariicda ay fulinayso iyo hawlaha ay bilaabaysaa waa bilow jaamacadeennu waa bilow magaalooyinkeennu waa bilow waxaanu doonaynaa inay noqoto Somaliland dalalka adduunka ugu horumarsan inay muddo ku gaadho oo maskaxda gaarsiiyo qofka bani aadmiga hadba hankiisa intuu gaarsiiyo iyo dal waliba ayuu gaadha haddaynu nahay dadka maanta jooga maamulka haya waliba qoladiina da'da yar haddaydaan meel fog eegin oo aydaan dadka dalku dhibaatooyin ku jiro ka gudbinin oo aydaan u adkaysan halkaas baan fadhiyana waana u dhigma kartaa haddaynu ku doonayno Sanaag imisa aqoon-yahan bay leedahay Sanaag imisa taajir bay leedahay Sanaag imisa nin oo wax qaban karo wax dhis kara leedahay Sanaag imisa nin oo ilaahay aqli iyo xikmad ay leedahay hadday intaasi mustaqbalka carruurtooda isugu tagto oo aynu doonayno jaamacad wanaagsan oo tacliinku waa la sibixaysa oo tira dalkan mustaqbalka wuxuu filan ay isu kaashato dawladda iyo Soomaaliland oo dhammaan way ku caawinaysaa way garab qabanaysaa inta keentaan in lagana wala keenay Sanaag jaamacad fooqaqa oo qurux badan oo macallimiin taraale oo qulunta oo duuhoodu soo bixiyo reer Sanaag way sameyn karaan waliba gobolada kalena way caawin karaan qaarkood waxaan ku baraarujinayaa horta inaanu fariinta gaarsiino reer Sanaag meel ay joogaan dawladda dhexe iyo gobolada kale waliba way caawinayaan diyaar baan gobol waliba waa kaas u tashada gobol waliba waa inuu saabila jaamacadda Amuud oo warsa jaamacada laakiin ninka hogaamiye odaashii asaasi waxay ku bilaabeen inay yiraahdaan Amuud boorama dhisanaysa boorama isku kaasho dabeetana intii ay hayeen isu geeyeen dabeetana bilowgood iyo fikradda waxay gaarsiisay inay 80% Soomaaliland jaamacadda Amuud dhisto ilaa Sanaag wax ku darsan markii la bilaabay marka haddii la yiraahdo codkiina waa tixgelinayna mudaantkooda waan siinayna intii suurtagal ah laakiin jaamacadda aanu gurmano gobolka mayorkii iyo gudoomiye gobolka waa reer Sanaag ka ariga raaca iyo ka taajirka ah iyo ka aqoon-yahanka iyo ka jooga meel kasta oo dibadda waynu hawlgalnaa waxa la jaamacaddan waa mustaqbalkii halkaas ku dhashay hal dhiso aad u mahadsantiin